waxaa jira warar gudaha oo si hoos loo hadalhayo oo la sheegayo in imtixaanka shahaadiga ee dugsiga dhexe ee dugsiga sare ee gobolka Banaadir aysan ahayn imtixaan lagu cabiro aqoonta ardayda galaysa imtixaankaas ay tahay ganacsi hoos loo maamulo. Maamulada iyo macallimiinta qaar ayaa lagu eedeeyaa inay lacag ka qaadaan ardayda si loogu fududeeyo imtixaanka. Ardayda aan awoodin bixinta lacagtaas waxaa loo adeegsadaa inay noqdaan kuwa ugu badan ee imtixaanka ku dhaca. Dhicitaankoodana waxaa loogu turjumaa inay yihiin arday aan u diyaar garoobin imtixaankaas, balse dhab ahaantii waa qorshe ganacsi oo sir ah. Qiimeynta warqadaha imtixaanka waxaa gacanta ku haya shakhsiyaad intooda badan loogu soo xusho qaraab ahaan ama xiriir siyaasadeed. Waxaa dhacda in warqadahaas imtixaanka aan loo saxin si dhab ah ama mararka qaar loo saxayo si loo yareeyo tirada guuleystayaasha. War qarsoon ayaa sheegaya in sababta loo sameeyo arrintan ay tahay in lagu abuuro bulshada cabsi, si loo yiraahdo waxbarashadu way adag tahay, balse dhab ahaantii taasi waa hab lagu kala saaro ardayda awoodda leh iyo kuwa saboolka ah. Warar kale ayaa sheegaya in imtixaanada qaarkood horey loo iibiyo ka hor inta aan imtixaanka la gelin. Ardayda awoodda leh ayaa fursad u helaya inay helaan su'aalaha imtixaanka ka hor inta aanay gelin, halka kuwa kalena lagu qasbo inay galaan imtixaanka ayagoo aan waxba ka ogeyn. Arrintan ayaa si weyn u dhaawacday sumcadda waxbarashada, waxaana dhacday in arday badan oo aan helin imtixaankaas hore loo sii iibiyay ay si ula kac ah ugu dhacaan imtixaankaas. Wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobolka ayaa mararka qaar u baahan inay muujiyaan in waxbarashada ay adag tahay si ay u helaan taageero caalami ah. Arday badan way dhaceen, caawimo iyo taageero ayaa loo baahan yahay. Tani waa xeelad siyaasadeed oo aan si cad loo shaacin, balse gudaha lagu wada ogyahay. Macallimiin badan oo niyad jabsan ayaa si hoos u sheegay in mushaarkooda yaryar oo ku riixay inay ka ganacsadaan imtixaanada. Waxaa jira dad sheegaya in qaar ka mid ah macallimiintaas ay ardayda ku qasbaan inay lacag bixiyaan si loo siiyo warqado fudud. Ardayga aan awoodin lacagtaas wuxuu ku dhacayaa imtixaanka si loogu muujiyo awoodda uu leeyahay macalinka. Ardayda hantida leh waxay helayaan tababaro qaas ah, casharo gaar ah iyo marin qarsoon oo lagu fududeynayo imtixaanada. Ardayda saboolka ah oo ka timid xaafadaha danyarta ah waxay imtixaan galayaan ayagoo kaliya naftooda ku kalsoon oo isku haleynayo aqoontooda. Waxaa la rumaysan in nidaamkaas loo sameeyay si loo kala saaro mustaqbalka. Kuwa lacagta haysta ayaa sii soconaya halka kuwa kale ay dhacayaan. Hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa deeqda bixiya ayaa loo soo bandhigayaa warbixin sheegaysa in arday badan ay ku dhaceen imtixaanka. Warbixinadaas waxaa loo adeegsadaa sidii cudurdaar loo dalban lahaa, taageero dhaqaale iyo mashruuc cusubna loo heli lahaa. Sidaa darteed, dhicitaanka arday badan wuxuu noqdaa albaab dhaqaale oo qarsoon. Waxaa jira warar sheegaya in nidaamka waxbarashada mararka qaar oo si hoos ula socdo sirdoonka iyo maamulka gobolka. Ujeedadu waa in la xakameeyo maskaxda dhalinyarada si aysan u helin fursado badan oo ay kaga hor yimaadaan siyaasadda. Dhicitaanada badan waxay noqdaan hab siyaasadeed oo lagu jiheeyo dhalinyarada, lagana hor istaago inay noqdaan cod xoog leh oo mustaqbalka wax ka bedela. Dhicitaanka balaaran wuxuu sababay niyad jab weyn oo qoysas badan ku dhaca. Hooyooyin iyo aabayaal badan ayaa u arkay in carruurtooda la ciqaabay iyagoo aysan waxba galabsan. Waxaa dhashay dareen ah in waxbarashadu aysan ka turjumayn dadaalka ardayda, balse ay tahay nidaam lagu kala saaro bulshada. Waxaa lagu tilmaamay inay tahay cadaalad darro la qorsheeyay. Marka la isku geeyo dhammaan wararka qarsoon, waxaa soo baxay in waxbarashada gobolka ay isu bedeshay ganacsi siyaasadeed oo isku dhafan, sida laaluush, cadaalad darro.